السلام عليكم أصحابتا سنة سومالي تكنولوجي كسود هذا عشرة عصوب هي توبيك عصوب أصحابتا today عشر كنا بقول سابسين هاي أصحابتا مدة كلام قنيني بس هاتون سؤال لعبتي عشرة توبيك عصوب عن دي سيدا توبيك أنا ما أنت بقول سابسين هاي Object-Oriented Programming System oo loo soo gaabiyo OOPS. So topic-geena maanta waxaan discussion ku samayn doonaa ama aan ka doodi doonaa aan falanqeyn doonaa asxaabta OOPS. Okay? So intaan u guda gelin yani macnaha OOPS iyo shaqooyinku qabto waxaan doonayaa inaan idiga siiyo concept oo guud ahaaneed inaan idiga siiyo sababta loo isticmaalo iyo halka laga isticmaalo OOPS oo loo soo gaabiyo Object-Oriented Programming System. Okay, asxaabta si casharkiina lasoo dhaafo waxaan ku qaadanayna C language waxay maadadii lasoo dhaafo aan qaadanayna so C language iyadoo waxay ka mid tahay maadooyinka la dhaho Procedural Oriented Programming. Okay, so sida barnaamij programming laba loo kala qaybiyaa kuwa waxa waa procedural kuwana waxa waa object. So procedural programming macnaheedu waxa waa yani tusaale kale waxa waa top to bottom. So C language kale markii aan qaadanayno markaad doonaysid execution inaad ku sameyso code-kaaga ama source code-kaada wuxuu ka soo bilaabaa qaybta ugu koreyso okay ilaa ayuu ka imaanaa bottom-ka so top to bottom okay maxaa basic u ah wax basic u ah functionska okay function by function-ka koobaad function-ka labaad okay function asiga dhanka sameysmo procedural macnaha waa function okay laakiin objectiga ama OOPS-ka oo loo soo gaabiyo Object-Oriented Programming System-ka isaga uu ka duwan yahay okay isaga waa cagsigiisa macnaha cagsigiisa wuxuu ku yahay waxa waa bottom to top approach okay shaqadiisu wuxuu ka bilaabaa asiga hoos u ka bilaabaa oo bottom-ka ah wuxuuna ku dhameeyaa top-ka okay so waa maxay markii yani haddii yani kana bottom to up uu yahay kana uu yahay up to top to bottom waa maxay farqiga u dhaxeeya ama se yani shaqooyin kala qabtaan okay maadooyinka ku shaqeeya procedural oriented programming iyaga waxa la dhahaa maadooyinkaas waa platform dependency okay waa platform dependency maadooyinkaas midda kale safety ma ahan code-kaaga wax safety ma haysto laakiin se maadooyinkan ku shaqeeya OOPS-ka ama Object-Oriented Programming System-ka waa high quality waana very fast waana programmada ugu badan oo maanta la isticmaalo waxaa kamid ah sida Java oo kala kamid ah Python oo kamid ah C++ka asna uu kamid yahay inkastoo qayb kamid ah C language ay tahay laakiin maadooyinka kale oo proceduralka ayaga waxa waa sida su'aal kale C language C++ka qayb kamid ah iyo Fortran maadooyinkaas okay so hadda casharkeena waxaan maleynaa inay fahanteen yani OOPS-ka yani macnaha laga leeyahay iyo waxa uu duwan yahay proceduralka okay anusu maana meeshan hadda definition-ka qaybtan koobaad OOPS stands for Object-Oriented Programming System okay sanadii sheegay yani meeshan waxa ku taalo procedural programming is about writing procedures or functions that perform operations on the data. Okay, while Object-Oriented Programming is about creating objects that contain both data and function. Okay. يعني معناها وحي كل دوين هذا انت سو شيغنا اللي ماشي هذا كنت هادلو يعني انجليش لو بدله. Okay. Procedural programming اي waxa يعني functions and procedures. Okay. laakiin objects-ka ay waxa waayeen marka yani waxa gadan soo dhameeyso qaybta ugu dambeeyso waxa yani ku digla qaynaysa ama saa ku create qaynaysa object-gaada okay while you created your object then object-gaada si directly ama automatically wuxuu wacaya all the functions ama member functions-ka okay member functions-ka waxay la shaqeeyaan data member-ka okay qaybtaas waxa si fiican u sii fahmi doontaa markii aad example ama practical sameyso macnaha yani waxa u dhaxeeya si fiican oo kala fahmi doontaa okay casharkeen haddii aan hoos u socono okay advantages okay advantages ka OOPS ama Object-Oriented Programming
okay OBIS ka ayaga waxa waa yani waa very fast and easier to execute okay execution markii lagu sameeyna way aad u fududahay wayna ka yani high speed ku soconayaan hadii loo eego dhanka proceduralka because proceduralka waxa waa yani marka ka soo dhamaatay function koobaad function labaad u gudbay function labaad ku soo dhamaada function saddexaad u gudbay yani waa sheekay yani complex wax yani ma ahan yani wax safety waa tusaale kale dependent macnaha dependent waxa loo jeedaa tusaale kale waxaan dhahay procedural waxa waa platform dependent okay OBIS kana waxa waa platform independent platform dependent macnaha waxa loo jeedaa tusaale kale C language kale inta badan waxa loo isticmaalaa ama version Windows مو استعمالي كرتيد another operating system like ما مو استعمالي كرتيد لينكس ما دوين كلا todo operating system كمو استعمالي كرتيد لكن only وحو وحو استعمالي Windows so platform independent okay هل ميل كويكتين okay لكن ما دوين كان OBIS كو شقاي سيدا بايثون كجافا iyo C++ ka qayb kamida amas iyo waxa ku shaqeeyaan especially C++ inkastoo yani oo si fiican u isticmaalin laakiin asiga waa soo gliya okay ayaga waxa waa platform independent so platform independent macnaha waxa waa any platform ama any operating system any OS au isticmaali karta okay oo wax limit ah ma ahan ama wax ba dependent ah ma okay so next definition okay next advantage okay OBIS provide clear structure for the programmers okay sanadii sheegay yani proceduralka ayaga waxa waa yani structure code ama qaabka uu code ka u yaalo ma ahan wax kale because waa function ka dhamaanay function kale u gudbay okay so function ka koowaad soo yani execution kiisa dhamaan function kale aad imaanaysid so waa wax complex laakiin OBIS asig waxa waayeen waa data iyo code kaaga data member kaaga iyo data member function kaaga waa only single unit isku yihiin okay then objectives kaaga ayaa declare objective kaaga ayaa ka bacdi wuxuu yani si automatically oo uu wacaya member function kaadaas okay member function kaadan waxa ku isticmaali kartaa data member kaada so uu ka fudud yani structure ahaan kana fudud uma dhawo kana fiican kana yani faa'iidadiisa badan tahay wax walba kana loo isticmaalaa okay so OBIS makes the code easier to maintain modify and debugging so debugging hadii noqoto modifying hadii noqoto maintenance waa code kaaga ama system kaaga hadii noqoto OBIS ka ayaa ku shaqale ayaa aad ugu fiican okay OBIS ka sida banaanba yani waa wax oo badan wax oo kooy laba ah maahan waa aad u badan yihiin laakiin basic concepts ka ama say u kala muhiimsan yihiin wax waa lix daan ugu muhiimsan okay lix daan ayaa ugu muhiimsan basic concepts ka OBIS lix daan hadaa taqaanid OBIS meeshii yani program kasta oo object oriented programming system oo loo soo gaabiyo OBIS ku shaqeeyo maku dhibaayo okay because OBIS hadaa taqaanid waxa kale waa nothing hada OBIS taqaanid waxa kale waa nothing okay way ku fududiin inaad programkaas aad barato muddo oo fudud oo kooban okay so sanadii sheegay basic concepts of OBIS yani lix daana ka soo qaataan lix daana ugu fudud lix daana yani inta badan yani shaqeeyo okay waxa kale oo waxyaabo iska yani adiga nothing okay number 1 waxa la dhahaa objective okay second waxa waa class kaaga third waxa ah data abstraction encapsulation inheritance and polymorphism okay these six are basic concepts of OBIS ayaan yani uga hadli doonaa okay hadda waxaan noo bilaabaynaa number 1 keena oo ah object okay waa maxay macnaha object hadafka laga leeyahay shaqadu qabto okay object is nothing but object like it is like combination of data and logic data macnaha waa data member kaada and logic هذا نحو member function that represents some real world entity okay hadii aan an example diga si yani data member dhahay iyo logic loo yaqaan member function okay waa maxay macnaha member function iyo data member macnaha waxa waa tusaale kale for example baabuur kale to ama car macnaha si ku leeyahay yani waxa oo data wuxuu leeyahay member data yeah solo kale magaca gaariga iyo qiimihiisa costigiisa iyo for example modelkiisa okay waa waxyaabo yani identitygiisa ama waxa waa attributeskiisa ama propertieskiisa okay laakiin logickiisa ama si yani qeybta
member function كساد يشيك member function كيس وحوا أما function كيس أما method كيس وحوا لكن قاري يعني mileage كوسحون عيو okay get foul كيس وكله like that وحباس قينا for example aniga kale to example waxaan iskaga soo qaato aniga data number-kayga waxa waayeen ama attributes-kiisa ama properties-kayga waxa waayeen ama variable-kayga waxa waa tusaale kale my name au qaadana age-kayga height-kayga weight-kayga waxyaabahaas waa data member ama attributes ama properties saddexdaas waxaas la isku dhahay yani isku wada mid waa okay waa maxay yani member function-kayga waxa tusaale kale waa cunaa yes I'm eating I'm sleeping waxyaabahaas tusaale kale waa socotaa waa jiiftaa waa cuntaa waxyaabaha shaqada waxa dhaca member function ama method okay so waxyaabahaas waxa la isku dhahay marka represent some real world entity okay so next definition waxa in an object oriented programming system or also gaabiyo obis everything is an object okay wax walba waa object okay أنا هذا object يعني because أنا جوا أنا على مجال leeyahay waxyaabahaas waa object yani objectiga wax caadi ah muuqdo okay wax muuqdo oo taariikhda camal okay definition ka saddex maxaa objects has a physical existence okay existence so that object has a memory location okay maadaama object physical existence aniga ijid ama computer ka qashka ka duubihaa waxa waa object waxa taariikhda okay maadaama shaygu wax object yahay so that object has a memory location okay it means macnaheedu waxa waa objectska it occupy storage okay it occupy storage okay so definition ugu dambeeya waxa waa object is an instance of a class object is an instance of a class yes because object yani la'aantiis ma shaqeynaa class okay class kaaga markaa soo digleeyso ka bacdi ayaa yani object waxa laga sameeyaa yani galaaska okay because يعني tusaale kale for example aniga hadda waxaan ahay yani tusaale kale yani man so for example ku fuu soo qaadan tusaale kale animal macnaha waa class so maadaama animal oo class yahay animal yani ma ahan wax oo yani oo shaqeeyo laakiin waa magac ahaan just was name waa general common name ama blueprint okay like animal maxaa hoos yimaado animal waxa hoos yimaado tusaale cat dog eehi hoos yimaado tusaale kale bisadihi okay tusaale kale lodi geeli waxyaabaha soo dhan waa animal okay laakiin animalskaas muxuu noqonaa waa class laakiin geeli iyo lodi iyo tusaale kale eehi iyo bisadihi maxay noqonaa object okay so hadina fahanteen oo marayna so object is an instance of a class okay example oo waxa waa in class okay qaybteena labaad waxaan ku qaadan doonaa class micnaha definition ka class iyo definition ka class iyo syntax okay waa maxay class aan idin sheego waa blueprint micnaheedu waxa waa yani just waa wax oo common ama general okay like for example animal ama human okay that student had student tusaale kale I'm student laakiin magaca student waa classki laakiin aniga waxaan ahay student kamid yani arday baan ahay yani kamid tusaale kale classka waxa dhigato tusaale kale 20 student so student waa classki laakiin aniga salad okay salad is student so aniga object yani marka okay laakiin student waa classki okay like that so animal ama human waa classki human tusaale kale waa classki laakiin I'm a man okay lady that is waa classki okay that waa object so human iyo animal waa class so in kala fahantaan laga wada marka haduu diinanad ku wala xinaa waa maxay class waa maxay object is like just real world entity waa tusaale kale wax muuqdo waa saan idin sheegay yani objectiga yani waxa waa tusaale kale for example accompanying leedahay accompanying yani waxa waa taa saving account ama waxa waa taa current okay current account ama saving account wixii yihiin ayaga waa class okay saving account maadaama uu class yahay yani dad badan waxa isticmaala saving account okay so saving account object adiga waxa tahay one object oo kamid ah yani isticmaalo saving account so object maadaama tahay magaca leedahay account number leedahay waxyaabahaas maadaama leedahay qayb kamid ayaa tahay yani saving account
okay for example example hadhuudi yani waxa ku qaadanaynaa as example ahaan waxa ku qaadan doonaa qaybta practicalka si aad u kala fahantaan objectiveska iyo classka okay second class is a collection of data members and member function okay si hadda ay soo qaadano waxaan dhahnay objectiveska macnaha waxa waa worldly entity okay waa is like just a real life entity so real life entity maadaama uu yahay classkaaga yani wuxuu ka kooban yahay data member and member function okay kuwan wax ku shaqeyn doona objectiveskaaga wuxuu ku abuurmayaa classkaaga okay syntaxka ama yani qaab structure-ka uu leeyahay classka qaabku yani u muuqdo okay syntaxkiisu waxa waa class name so name of the class is first class waxa waa key waa keyword isticmaalin waa class waa macnaha wax keywords maxaa loo yaqaanaa keywords waxa waa yani waa meaningful leeyahay wax meaningful ah oo yani programka ama library-ga oo yani programmada ay leeyihiin wax ku jiro waayeen oo save gareysan camal okay class hadda isticmaashid yani asiga macnuhu yaqaana wax oo macnaha ka bedeli karta adiga okay you can change so almost in library-ga ama predefined functions ka ayaa yani lagu soo qeexay waxa loo isticmaalo so keywords ku kamid yahay okay so keyword ka class soo qaadanay wax ka bacdi name-ka waxa ka dhiganay class name of the class waa kana name of the class so name of the class waxa ka dhigi kartaa tusaale kale student waxa ka dhigi kartaa human waxa ka dhigi kartaa animal okay saving account banki waxa doontaa ka dhigi doontaa okay then classka wuxuu ka kooban yahay data member iyo member function okay data member maxay tahay data member waxa la dhahaa propertieska ama waxa la dhahaa attributeska ama waxa la dhahaa variable ama statuska waxyaabahaas waxa la dhahaa data member for example ahaan student so student maadaama uu classki tusaale kale class waxa la dhahaa class student okay data member kiis wuxuu noqon doonaa so student wuxuu leeyahay name yes student name age DOB or date of birth xilliga qofka dhashay tusaale kale student marks waxyaabahaas waxa waa data member okay so member function waxa waa asiga methodska ama taskska ama procedure-ka waa qaybta oo shaqada qabanayso okay saan idin sheegay aniga tusaale kale maadaama human ahay human waa classki laakiin aniga waxaan ahay tusaale kale man yes so one shift waxa qunaa waa socdaa waan shaqeeyaa waxyaabahaas oo dhan waxay noqonayaan member function-ka okay so asxaabtu waxaan u maleynayaa example ina wax ka fahanteen hadda class and object okay cashirkeena maanta wuxuu ku egyahay object iyo class okay qaybta saddexaad waxaan ku qaadan doonaa ama cashirka soo socdo data abstraction iyo encapsulation kan ku sii xigay waxaan ku qaadan doonaa inheritance kan ku sii xigay waxaan ku qaadan doonaa polymorphism okay inta mada fahanto object oriented programming oo loo soo gaabiyo OOPs yani ma ku dhibaayo meel walba aad ku aragtana waad fahmay yani shaqadu qabana iyo hadhow diyax su'aal iska migelinaysa okay so cashirkeena maanta asxaabta intaas uu ku egyahay magasi time waxaan qaadan doonaa asigoo yani example oo ku saabsan class iyo objective okay sida hadda inta ka muuqato programkan just meeshaan hadda example ahaan idiga tuso hadda classkaygu waxa waa n complex okay n complex waa classkayga macnaha number of complex okay si aad dugsiga sare yani marka algebra qaadanaysid yani waxa loo qaybiyaa sooma ahan yani labo midna waxa waa real midna waa imaginary real number macnaha waxa waa tusaale kale 1 2 3 okay imaginary number kan waxa waa tusaale kale I baa la socoto okay calaamada I la socoto okay programka marka soo dhameeyso qaybta ugu dambeeyso waantana waxa leedahay in complex classkaaga soo qaadane so in complex C1 aan leedahay okay C1 ka macnaha waxa waa object C1 kan si waxa waa object okay C1 kan si waa object so object ka marka yani xagee laga abuuro waxa laga abuuro classka in complex waxa laga abuuro object kan oo loo yaqaan C1 okay then haddii aad C1 kana abuurto C1 kaaga dot display leedahay display waa function so san ii sheegay yani haday waxa leedahay data member iyo member function okay data member iyo member function iyaga marka isticmaalaysid waxa loo isticmaalaa waxa la dhaho
access specifier. Okay, waa maxay access specifier? waxaa la dhahaa sida like private, public iyo protected. Okay, private waxaa loo isticmaalaa macnaha markii yacni xogtaada aad doonaysid in safe ku ahaato oo keliya glasskan ay kugu jirto. Okay, glass kaleetood ama banaanka oo glasskan ma doonaysid in lagu isticmaalo. Okay, private ka dhiganaya haddii aad doonaysid yacni xogtaada inay wax public noqoto oo code kasta lagu isticmaalo ama glasskan glass aan ahayn lagu isticmaalo public ka dhigay. Okay, protected kana macnaha waxa waa ayaga wax inta badan loo isticmaalo inheritance-ga. Okay, taas ayadana inheritance-ga ku qaado doona qaabka loo isticmaalo. Okay, hadda waxaan dhahnay private, unreal and unimaginary. Okay, waa maxay marka unreal iyo unimaginary? Okay, waa variable laakiin maxaa waa attributes ama waa variable ama waxa waa properties. Okay, public. Okay, wide display. Okay, waa maxay display? Display macnaha waxa waa function. waa function. Okay, function waa laakiin kuwan ayaga waxa waa attributes ama waxa loo yaqaanaa data member ama waxa loo yaqaanaa variable. Okay, just a variable iska. Okay, ama attributes and properties. Okay, asxaabta maanta casharkeena intaas ayuu ku egyahay. Next lesson waxaan ku qaadan doonaa casharada soo socda. So asxaabta channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe taabo si aad ula socoto casharada aan maalin walba soo dhigi doono. Okay.